بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا سوم اي تي توتورياليس iyo cashiradii sequelka cashirkii 20 iyo afraad cashiradii ugu dambeeyay waxaan kaga soo hadlaynay ama kii ugu dambeeyaba waxaan ka soo hadalnay relationka databaseska qaabka ay isku xiriiraan tableska waxaan ka soo hadalnay one to many relationship many to many relationship one to one relationship sida datada ama xogta tableska ee related isku la tahay waxyaabahan ayaan ku soo sheegnay dib ugu laabanayno laakiin waxaan rabnaa tusaale ahaan oo kale cashirkan aan ku sameeyno inaan create gareyno practically inaan u aragno sida xogta isku la xiriirto inaan u aragno tusaale ahaan oo kale hadda meeshan waxaan sameynaynay one to many relationship ayaan sameynaynay one to n relationship department is table iyo employees table ayaa meeshan relation isla ah related isla ah one to many relationship waxa loo dhahaa waxay tahay marka aad department ka soo bixaysid oo aad soo fiirinaysid employees oo aad dhigaysid department to employees relation ka maxay tahay waa one relationship waa taasoo ah one department ayaa waxa ka shaqeyn kara kaliya shaqaale badan marka aad fiirisid oo employees joogtid fiiri marka table-ka employees marka joogtid shaqaale badan ayaa waxay ka shaqeyn karaan hal department saas daraadeeda employees-ka waa money side waa department-iska waa one side waa one side ka waa department-iga money side ka waa employees one to money relationship qaybta dhinaca wanka ah waa department-iga dhinaca money-da ahna waa employees-ka oo relation badan ay ka imaanayaan shaqaale badan ayaa hal department ka shaqeyn kara saas daraadeeda relation-ka department ID-giisa u jeedid relation-ka waxa dhigaysaa dhanka money-da mar walbo aad one to money relationship sameynaysid money side ayaa waxa la dhigaa relation-ka ayaa la dhigaa foreign keyga meesha ayaa la dhigaa so foreign keyga aan create gareyn doono cashirkan table-ka employees ayaan dhigi doonaa haddii aad fiirisid one to one relationship-ka employees iyo employees accounts cashiradan cashirka ka horeeyay soo daawo haddaad rabtid inaad fahantid so employees iyo table-ka employee accounts waxaan dhahnaa one to one relationship waa sababtoo ah hal shaqaale waxa uu yeelan karaa hal account waxa iska leh hal shaqaale kaliya saas daraadeeda one to one relationship waa relationka marka waxa dhigi kartaa labadan table mid ka rabtida dhigi kartaa aniga hadda waxa dhigay employee account saa dhigay oo aan dhahay micno uu sameeynaa employee accounts inaan dhigo shaqaalaha hadii aan tiro account-kaasna u baxo saas daraadeeda employee accounts ayaan relation ka dhigay laakiin ogo one to one relationship labada dhinacba mid ka rabtida dhigi kartaa relationka maadaama isku mid ay yihiin oo muxuu ah relationkooda one uu yahay kaliya waxa uu sii fiirsaa kee micno sameeynaa inaad relation ka dhigtid so relationka waxa uu yahay employee ID-gana u jeedid meesha aan dhigayno marka aan create gareynayno foreign keyga employee accounts table ayaa waxaan dhigi doonaa foreign key relationkiisa taasna waa one to one relationship money to money relationship way ka duwan tahay marka sidaasna laba table saa u jeedid employees table iyo projects table oo ah laba table oo kala gooni ah shaqaalaha waxaan dhahnay marka aad fiirisid dhinacan employees-ka oo aad shaqaalaha fiirinayso dhigaysid employees to projects waxay noqonaysaa shaqaale badan ayaa waxay ka shaqeyn karaan hal project money side ayaa inta ka imaanaysa marka inta fiirisidna projectyaal badan ayaa waxa uu ka shaqeyn karaa hal shaqaale saas daraadeeda dhankaana waa waa money to money relationship saas loo dhahay marka end to end marka relationkooda la sameynayana table gooniya la sameeyaa table-kaas relation-ka store gareeya saa u jeedid table employees projects table-kaas wuxuu store gareynaa relationship-ka labadan table ka dhaxeeya saa u jeedid employee ID soo qaadanayna iyo project ID wuxuu keedinaa shaqaale kasto iyo project-iga uu ku lug leeyahay shaqaale kasta iyo project-iga uu ku lug leeyahay shaqaale kale waxa dhahnay hal shaqaalena project-yaal badan ka shaqeyn kara hal project-ina shaqaale badan ka shaqeyn karo money to money relationship waa money to money relationship-kana waxa la sameeyaa table gooni ah loo sameeyaa employees projects u jeedid magaca waxa loo qaataa inta badan qaabka ay u kala horeeyaan table-ada magacyadooda ayaa loo qaataa table-ka relation-ka store gareynayo okay hadda waxaan rabnaa marka inaan create gareyno xogtii inaan create gareyno marka koowaad waxaan create gareynaynaa create waxa leenahay database-ka marka shaqaale iyo departments iyo maadaama aan keedinayno iyo projects iyo employees waxyaabaas aan keedinayno waxaan u bixinaynaa company DB u bixinaynaa magaca waxaan u qaadanaynaa database-ka company DB u qaadanaynaa so waxa leenahay
create waxa create gareysaa database kaas magaciisa waxa waaye company db ayaa u bixinaa magaca aad rabto qaado ani magacana u qaatay database kan create gareynaa database ka dabcan waa create gareynaa saa u jeedid si aan marka database kan tables ka uu create gareynaa ama uu shaqeeyno waa inaan database kan connection keena wax ka soo bedelnaaho connection ka waa inaan edit dhahnaa investment ayuu noogu kaydsanaa hadda waa inaan ka dhigno company db waa inaan ka dhigno connection kan so save connection ayaa leenahay marka ayaan ku xireynaa hadda connection keenu waxa uu ku xiran yahay database ka aan create gareyna dabcan so haddii aan fiirino qaybta connection ka waxaan haysanaa company db saa u jeedid meeshaan ayaan ku haysanaa table maanan create gareynin tables ka hadaan create gareynaa so create waxaan create gareynaa marka waxaan create gareynaa company db tables ayaan create gareynaa .sql tables ka ayaa meeshaan ku create gareynaa marka ka bilaabeena sidee u horumarinayna marka ugu horeysa waxaan dhahnay waxaan ka bilaabeynaa dhowr table haysanaa table departments ah table employees ah table employee accounts iyo table kale projects intan ayaan haysanay Soomaan waxaan ka bilaabeynaa departmentiga create gareynaa marka ugu horeysa because employees ka ayaa waxay u baahan yihiin department relation ka inaan employees ka dhigno so waa ina departments ka hormarisid marka ugu horeysa kadibna employees marka aad sheegaysid department uu ka tirsan yahay aad reference am relation kala xiriiri kartid sidoo kale table kale aan create gareynaa ama relation kale ama entity kale create gareynaa oo ah employee accounts iyo employee relationship ay leeyihiin one to one relationship ashirka sa ku soo arkaysay one to one relationship ka ay leeyihiin employees ka hormarnayna employee accounts ayaan relation ka dhigaa foreign keyga table kan ayaan dhigi doonaa haduu alidmo projects table ayaan create gareynaa employees iyo projects relation ay leeyihiin table gooniyan oo sameyn doonaa so sidaas ayaan u create gareynaa marka tables keena waxaan ku bilaabeynaa create table ka magaciisa waxaan ka dhigaynaa departments waa table ka ugu horeeya aan create gareynayno okay wax badan oo u baahanna waxaan leenahay id bisaan u baahannahay name ka departmentiga saas daraadeed waxaan leenahay id ga waa integer primary key auto increment asaga auto increment isku sameynaa inaga ma rabno inaan increment aan saxno increment okay id gan mysql ka ayaa inoo maamuli doonto ida create gareynayso 1 ayay ka bilaabaysaa 2 3 4 qaabkaas ayuu u socon doonaa so id ga sidaas ayaa loo create gareyn doonaa inaga marka data gelinayna xitaa id ma gelinayno because automatically ida iska sameyn doonto primary key na waa dabcan departmentiga magaciisa ayaan u baahannahay departmentiga waxaan leenahay magaciisa waxaan ka dhigaynaa ilaa iyo 200 xuruuf siinayna waxaan sidoo kale siinayna leenahay not null oo empty ma noqon karto labadan ayaan u baahnayn kaliya kanna waxa waaye waa automatically generated id oo mysql ka inoo maamuli doonto kanna anaga aan geli doono table kana marka xog gelinayno department name ka table ka department sidaas ku create gareynay waxa xiga table ka labaad aan create gareyn doono waa table ka employees ka shaqaalaha so waxaan leenahay marka create waxa create gareysaa table kaas oo ah employees table create garey table ka employees ka waxa uu yeelanaa sidoo kale id gan ayuu yeelanaa table walba waxa siinayna id gan saas daraadeeda first column ka waxaan ka dhigaynaa id employee name ka ayaan rabnaa inaan soo qaadano oo dhahno employee name ka waxaan siinayna asagana varchar ilaa iyo waxaan siinayna asagana 200 oo xuruuf oo kala siinayna empty ma noqon karaan dhahnay not null empty ma noqon karo sidoo kale employee ga waxaan siinayna column kale oo dheeraad ah sida bbt ku xasuusataba employee ga department uu ka tirsan yahay so relation ka meeshan ayaan dhigi doonaa table kan ayaan dhigi doonaa department id ayaan u baahanahay leenahay department id gaas waa integer department id gan integer ka ah waxa laga soo qaadan doonaa table ka departments ka column kaas id ga ayaa laga soo qaadan doonaa saas daraadeeda waxa leenahay marka foreign key ayaa meeshan ku qoraynaa
foreign key constraint. Foreign keygan waxa uu leeyahay table-kan department ID-giisa waxa uu references ku sameynaa tixraac wuxuu tixraacana table-ka departmentiska ayuu tixraacana column-kiisa ID ayuu tixraacana. haddii departmentigaasi la tirtirana on delayed, haddii departmentigaasi database-ka laga tirtiro maxaa ku dhacayo shaqaalahan column-kan department ID-ga uu haysto maxaa ku dhacayo? set null ayaan siinayna oo waxa leenahay booskaas waxa lagu buuxinaa null. shaqaalaha xogtiisana ma tirtireno, kaliya departmentigiisa ayaa null ku buuxinayna, kaasoo ah shaqaalahan iminka department uu ka tirsan yahay malahan, laakiin xogtiisa waa haysanaa inaan dhaxno set null. saas ayaa u sameynayna. sidaan waxaan ku create gareynay table-ka employees-ka iyo table-ka departmentiska. intaan haddaa fiirisid waxaa kasoo baxaysa one to many relationship oo aad cashiradii kusoo baratay, oo ah one department in ay ka shaqeyn karaan shaqaale badan, in shaqaale kasta uu ka shaqeyn karo kaliya hal department, laakiin one department ay ka shaqeyn karaan shaqaale badan. saas daraadeeda this is the one side, this is the money side. money side-ka ayaa waxaa dhigaynaa marka relationka foreign key-ga meeshaas ayaa la dhigaa relationka foreign key-ga markaa sameynaysa cashirada hore waxaan kusoo baranay in la raaciyo mar walbaba on delayed, oo ah maxaa dhici doona haddii xogtaan la tirtiro si loo ilaaliyo referential integrity-ga. xogtaan haddii departmentigan la tirtiro oo tixraaca lagu haysto maxaa dhici doona? set null oo ah action ka dhici doona waa set null, in booskaasi tixraaca laga sameynayo ee department ID-gaas null lagu bedelo. oo arki doonaa dhowt markaan sameynayno. waxaan create gareynaynaa table-ka xiga. table-kaas xiga aan create gareynayno waa table-ka employee accounts-ka. create table ayaa leenahay. table-kaasna waxaan u bixinaynaa employee accounts table. employee accounts table waxa uu yeelanaa username iyo password iyo tixraac uu haysanayo username iyo password-kan shaqaalaha iska leh. saas daraadeeda column-kan employee accounts table uma baahni inaan ID u sameeyo, because username-ka ayaan waxa u isticmaali karaa primary key ahaan. waxaan leenahay column-ka username ayaan soo qaadanaa. waxaan leeyahay username-kan ilaa iyo waxa ogolnahay 200 oo xuruuf oo kale iska dhig asagana. username-kan waa inuu noqdo unique, waa inuu noqdo. saas daraadeeda unique-na waa inuu noqdo, sidoo kalena waa inuu noqdo not null, waa inuusan ahaanin oo empty, waa inuusan noqonin. labadan haddii ay heshid unique iyo not null haddii ay heshid waxay u taagan tahay primary key adigoo helay. saas daraadeeda meesha ID aan isticmaali lahaa table-kan waxaan ku bedelaynaa username-ka. haddii aragtidna ID waa ku bedeli kartaa sidaan asagoo laakiin muxuu ahaa different way ayaa tusaa, maadaama casharadii badankood aan ku arkaynay ID inaan isticmaalayna mar walba primary key-ga. hadda primary key-ga table-kan username-kan ka dhigaynaa. username-ka waa column-ka marka password column ayaa sidoo kale na jira oo ah password ayaan kaydinaynaa. password-ka sidoo kale waxa uu noqon doonaa asagana varchar ayaan siinaynaa ilaa 200 oo xuruuf. password-ka not null ayaan siinaynaa oo asagana empty ma noqon karo. intaan kaliya ayaan kaydinaynaa, ma adkeynayno, kaliya relationka rabnaa inaan ogaano. hadda marka account-kan marka waxa uu table-kan waa employee accounts, wuxuu kaydinaa username iyo password ayuu kaydinaa. username iyo password-ka yaa iskale marka waxa iskale shaqaalaha iskale marka inaan inta ka tixraacatid waa marka shaqaalaha iskale waxaa leenahay employee ID ayaa meeshaan dhigaa. marka employee ID-ga waxaa lagu kaydin doonaa ID-ga shaqaalahan ayaa lagu kaydin doonaa si loo ogaado username iyo password-kan yaa iskale shaqaalaha iskale reference-ga in laga haysto. saas daraadeeda marka waa inaan dhahnaa marka shaqaale walba waxa uu yeelanaa hal account walbana waxaa iskale hal shaqaale kaliya. saas daraadeeda employees iyo table-ka employee accounts waxaa ka samaysmi doono relation one to one relationship. relationka xagee dhigaynaa intaan dhigay marka table-kan waa dhigi kartaa darteed, laakiin muxuu ahaa si aad u aragtid macnaha wixii sense sameynaya ama micno ku sii sameynaya ayaa la sii sameeyaa. oo ah hadda inaan dhigno relationka employee accounts table ayaa micno sii sameynayso, laakiin no problem. labada one to one relationship markii ay tahay labada table mid kamid ah dhigi kartaa, laakiin ogow table-ka aad relationka dhigaysid maahane table-ka aad tixraac ku sameynaysid waa inuu mar walbaba kaas horeeya. hadda employees aad tixraac ku sameynayna waa inuu isaga ka horeeya table-kan aad relationka sameynayno. saas daraadeeda employee ID ayaan u baahannahay table-kan oo integer ah. foreign key ayaan soo qaadanaynaa. foreign key waxaan leenahay employee ID
column kan employee ID waxa uu references tixraac ahaan u haystaa table-ka employees ayuu tixraac ahaan u haystaa column-kiisa ID ayuu tixraac ahaan u haystaa haddii marka shaqaalaha la tirtiro maxaa dhici doono on delayed shaqaalaha xogtiisa haddii la tirtiro waxaa dhici doono account-kan set null marka ma dhahayno account-kan waxa waaye shaqaale kasta wuxuu leeyahay hal account haddii shaqaalahaasi aan tirtirno oo ma bixino waa in account-kan aan tirtirnaa uma baahnin because set null hadda meeshan departmentiga haddii aan tirtirno shaqaalahan departmentigiisa set null ayaa ku buuxinayna oo dhehne shaqaalahan department ma haysto laakiin shaqaalaha xogtiisa way joogtaa ogow hadda laakiin shaqaalihi haddii aan tirtirno employee account stable ma dhahayno employee accountskan shaqaalihiisa waa la tirtiray waa inuu meesha inuu yaalaa ma dhahayno waa inaan dhahnaa asagana waa inuu baxaa saas daraadeed maxaa raacinaynaa actionka waxaa leenahay cascade-ka waxa uu yahay haddii shaqaalahan tixraac lagu sameynayo la tirtiro account-kan uu meeshan ku leeyahayna on delayed cascade waa inuu isagana raaca uu ka daba tirbaa waa micnaheeda automatically so shaqaalaha aad tixraacinaysa haddii la tirtiro account-kiisana waa inuu baxaa taasaa micno sii sameynaysa marka sidaasna waxaan ku create garaynay one to one relationship oo muxuu ahaa labadan table ka dhaxeeya waxaan rabnaa table kale inaan create garayno oo ah table-ka projects inaan create garayno create ayaa leenahay table waxaan create garaynaynaa table projects ayaa create garaynaynaa table projects marka aan create garayno waxaan leenahay table-ka projectska ID ayuu leeyahay ID-gana dabcan waa sidii kuwii hore oo kale ayaan soo qaadanaynaa dabcan column-kan ID-ga marka aan soo qaadano waxaan leenahay project name-ka maxay tahay project name-ka isagana waxaan leenahay varchar ilaa iyo 200 xuruuf oo kala geli kartaa leenahay not null-na waa inuusan empty noqonin uu yaalaa labadan column ayaa u baahannahay kaliya meeshan ID oo inoo maamulayso automatically MySQL-ka iyo project name-ka inaga aan sameynayno sidaan marka aan dhahno project table sidaan ayuu ku samaysan yahay hadda marka waxaan rabaa inaan relation sameeyo project table iyo shaqaalaha inaan relationkooda sameeyo waxaan rabaa inaan dhaho hal shaqaale wuxuu ka shaqeyn karaa projectyaal badan hal projectina waxaa ka shaqeyn kara shaqaalayaal badan saas daraadeeda money to money ayaa meeshaas ka samaysmaysa oo ah hal shaqaale wuxuu ka shaqeyn karaa projectyaal badan hal projectina waxaa ka shaqeyn kara shaqaale badan money to money relationship waa so employees iyo projects money to money relationship kooda xagee la dhigaa table gooniya loo sameeynaa marka money to money relationship mar walba table gooniya la sameeyaa so waxaan create gareynaynaa create waxaan leenahay table name-ka waxaan ka dhigaynaa sida labada table ay u kala horeeyaan labada relation table ay sameynayaan sida ay u kala horeeyaan waxaan leenahay employee iyo projects labadaas table ayaan soo qaadanaynaa maadaama relationkooda aan meeshan ku kaydinayno employee projects employee waa table-ka employees ayaan kasoo tixraacana magacaas projectsna waa table-ka projects ayaan kasoo tixraacana maadaama relationkooda aan kaydinayno saas daraadeeda table-kan wuxuu kaydinaa marka relation waxa uu haysanaa marka ID ayuu isaga haysanaa table-kan isaga ID ayuu leeyahay gooni ah ID-gaas marka laga soo tago wuxuu kaydinaa marka relationka employee iyo projects ka dhaxeeya saas daraadeed wuxuu u baahan yahay employee ID oo integer ah iyo sidoo kale wuxuu u baahan yahay project ID waxaan leenahay waxaan u baahannahay project ID oo asagana integer ah table-ka projects aan kasoo tixraacinayno labadan ayuu kaydinaa employee ID-ga waxaan ka tixraacinaynaa table-ka employees-ka si aan u tixraacano marka maxaan sameynaynaa foreign key ayaa meeshan ku qoraynaa waxaan leenahay foreign key table-ka column-ka employee ID wuxuu tixraac ahaan u haystaa leenahay references wuxuu tixraac ahaan u haystaa table-ka employees-ka column-kiisa ID ayuu tixraac ahaan u haystaa haddii employee-gaas la tirtiro on delayed haddii employee-gaas la tirtiro maxaa ku dhici doono relation-kanna waa inuu raacaa leenahay cascade haddii employee-gan la tirtiro table-kan relation-ka ah waa inuu raacaa uma baahnin marka shaqaalahan waa la tirtiray shaqaalahan iyo projectiga uu ka shaqeynayo relation-kiisana waa ay tirtirmi doontaa so on delayed cascade ayaa meeshaan dhigaynaa because haddii employee-gan la tirtiro relation-kanna waa inuu baxaa uma baahnin because shaqaalihii waa la tirtiray meeshaan relation project uu ka shaqeynayo waxaas inaan keedino uma baahnin because waaba tirnaba shaqaalahan so on delayed cascade mar walba foreign key la sameynayo waxyaabahan ina ka taxadirtid waa reflection integrity au ilaalisid
project ID ayaan tixraacaneynaa sidoo kale sababtoo ah laba table ayaa relationkooda keedinaynaa oo money to money relationship ah. Money to money relationship-ka labadan table aan keedinayno table gooniya lagu store gareeyaa relationkooda. waxaa laga tixraacdaa marka labada table ayaa laga tixraacdaa. Table-ka koowaad waxa waaye employee ID gaan tixraacaneynaa, foreign-kiisa waa sameynay. Table-ka labaadna project ID ayaan tixraacaneynaa. saas daraadeeda project ID na maxaa sameynaynaa, waxaan asagana ka tixraacaneynaa foreign-kii. waxaan leenahay waxaan tixraacan u haysanaa ama aan tixraacaneynaa aan leenahay project ID column-kan waxa uu reference ahaan u haystaa table-ka projects, gaar ahaan column-kiisa ID-ga ayuu tixraacanaa. haddii project-ga la tirtiro maxaa dhacaya marka on delete, haddaan project-ga aan tirtirno cascade waa in meeshaan relation-ka ku jirana u baxaa. waa arki doonaa markaa xogtan aan tirtiri doono ayaa arki doonaa sida u baxayso xogta. So haddii project-ga la tirtiro relation-kan waa inuu baxaa, haddii employee-ga la tirtiro relation-kan waa inuu baxaa. So mar walba marka cascade-kaas waxa ay hubinaysaa haddii table-ka la tixraacanayo xogtiisa la tirtiro waa inay baxdaa xogtan meesha aysan kusii joogin. sidaasna waxaa ku sameynay table-kii ugu dambeeyay ee projects employee projects. Okay, hadda marka waxaan rabnaa marka dhammaan table-adii waa sameynay. Department table, employees table, iyo employee account table, iyo project table, iyo employee project table. sida ay relation isku leeyihiin waxa ay tahay labadan table waxa ay isla yihiin one to many relationship oo ah one side-ka waa department-ga, money side-ka waa employee-ga. oo ah table-ka department-iska ayaa waxa uu relation la yahay table-ka employees-ka. oo ah hal department waxa ka shaqeyn kara shaqaalayaal badan, hal shaqaale kaliya wuxuu ka shaqeyn karaa hal department, laakiin hal department waxa ka shaqeyn kara shaqaale badan. saas daraadeeda this is the money side, shaqaale badan waxay ka shaqeyn karaan hal department, kaasa marka foreign-kiga dhigaysa one to many relationship. sidaan ayay ku sameysmaysaa. marka aad fiirisid table-ka employees iyo table-ka employee accounts one to one relationship waay, because waxaan leenahay hal shaqaale wuxuu yeelan karaa hal account waxa iska leh hal shaqaale kaliya. one to one relationship waay. So relationship-ka marka waxaan dhigaynaa employee account table. labada table relationka meesha rabtaa dhigi kartaa one to one relationship, laakiin waxaan dhahan employee accounts ayaa wuxuu sameynaa micno muhiimadan kaliya waxay tahay inaad fahamtid one to one relationship-ka meesha aad dhigaysidna micno ku sii sameynaysa kaliya. laakiin haddaan employees-ka dhigno wax problem ma lahan oo aan dhahno account-ka waxaan kasoo tixraacanaynaa employee-ga. haddaan employee account hormariyo oo aan dhaho employee kasto account-kiisa waxa uu ku tixraacanaa table-ka employees-ka laga soo tixraacanaa account-kan, haddaan dhahno idana problem ma laha, laakiin qaabkan ayaa ku habboon is leeyahay. on delete-kan mar walba waxaan u raacinayna waxaan dhahnay haddii department-ga la tirtiro shaqaalahan tixraaca sameynaya ee department-kiisa nal waa in lagu bedelaa oo dhahnaa shaqaalahan waqti xaadirkan department ma haysto oo department-ka waa la tirtiray, asaga xogtiisa waa inay inoo joogtaa inta department kale looga assign gareynayo macnaheedu. taasaa it makes sense, macnaheedu noo sii sameynaysaa. laakiin table-kan labadan table marka isku fiirisid one to one relationship waa oo waxaan tixraacanaynaa employee-ga ayaan tixraacanaynaa employee accounts marka aad joogno. haddii employee-ga marka shaqaalaha la tirtiro account-kan waa inuu baxaa, uma baahdin marka in nal ku bedeshid, because waxaan dhahnaa shaqaalihii waa la tirtiray account-kiisana waa inuu baxaa, waa inay tirtirmataa. cascade-kaasna action-ka marka la sameynayo marka reference-gaas laga haysto la tirtiro waa marka project table aan create gareeyay. project table waa table kala gooni ah. project table iyo waxa xiriir leh marka employees table. xiriirka ay leeyihiinna waa money to money relationship. money to money relationship xiriirka qaabka ay ku yeeshaan waxa uu yahay shaqaale badan, hal shaqaale aan dhahay hal shaqaale ayaa wuxuu ka shaqeyn karaa project-yaal badan, that is the money side. hal project-na waxa ka shaqeyn karaa shaqaale badan, again money side waa money to money relationship. hal shaqaale wuxuu ka shaqeyn karaa project-yaal badan, hal project-na waxa ka shaqeyn karaa shaqaale badan. saas daraadeeda money to money relationship waa labadaas table employee iyo projects relation-kooda marka money to money relationship maadaama ay yihiin table gooniya loo sameynaa marka asaga oo ah employee projects table ugu magac daray. magac kale oo bixi kartaa daarteed, laakiin magaca inta badan money to money relationship-ka relation-ka table-ka lagu store gareeyo magacooda waxaa loo qaataa labada table ee relation-ka money to money ka dhaxeeya magacyadooda si kala horeeyana loo qaataa magac ahaan.
si micno ay ku sii samayso table kaas marka wuxuu keedinaa employee ID iyo project ID uu keedinaa maadaama relation uu keedinaa shaqaalaha iyo project uu ka shaqeeyo shaqaalaha ID-giisa iyo project ID-ga oo ah shaqaalaha project uu ka shaqeeyo shaqaalaha kasta project uu ka shaqeeyo marka insertion ka sameeyna arki doonaa qaabkan ayaa tables ku sameeynay okay si aan marka tables ku create gareyno waa inaan marka aan ku dhufanaa run active connection ayaan ku dhufaneynaa okay waxaan haysanaa error ayaa soo baxay syntax error dabcan haysta syntax error kan marka si aan u fahanno marka ugu horeyso inaan tagnaa tableska oo aan dhahnaa refresh waxaan arkaynaa department table employees table in la create gareeyay okay department table employees table marka la create gareeyay it means micnaheedu waxa uu yahay labadan table waa la create gareeyay errorka wuxuu ka jiraa employee account soo ku istaagay problemka meesha ayuu ka jiraa so employee accounts kan daa fiirino employee accounts lastiga kuma ma dhigin this is okay okay waa kana saa u jeedin komadan oo unique ka dambeeysa ayaa errorka u yahay because komada waa in column-ka marka uu dhamaado la dhigaa kuwan kale ama constraints kan dhexdooda waa in la dhigin tan waa errorka intan ayuu ahaa so problemka syntax errorka waxa inta badan keena inaad comma hilmaamtid ama inaad meel qaldan dhigtid waxyaabahaas ayaa syntax error keena so hadda waxaan leenahay run active connection department table hore ay u create gareysnay dabcan saas daraadeeda waxaan iska saareynaa comments because marka aad create gareynaysid mar labaad inaad create gareysid if not exists dad ku darin error ayaa ku soo baxay so waxaan leenahay active connection again error kale ayaa jira errorskana muhiim waa inaad fahamtid si aad errorka mar walba u aragtid tableska tagayna waxaan leenahay refresh departments employees way no create gareysnay employee accounts soo jeedid waa la create gareeyay sidoo kale projects waa la create gareeyay intuu problem ka jira marka wuxuu problem ka jira hadda soo jeedid column-ka ugu dambeeya column-kaas waxa uu yahay employee projects soo jeedid employee projects error-ka xaq ka jira marka aan isla fiirino dabcan I'm sure comma la inay tahay kana comma soo jeedno lenkan foreign-kiga ayaa commada hilmaamna soo jeedid foreign-kiga marka aan sameynay ayaan commada ka hilmaamnay saas daraadeeda commada waa inaan raacinaa table kaas ayaa ugu dambeeyay creation kiisa kaas ayuu ku istaagay saas daraadeeda kuwan kalena waa inaan dhahnaa comment inaan iska saarno si aan mar kale loo soo create gareynin haddii aan ran gareyno table kan waxaa arkaysaa in la create gareeyay so waxaa meeshan ku haysanaa marka hadda dhammaan tableski department table waxaan sidoo kale haysanaa employees ka table ka u jeedid employees accounts employees projects table employees ka iyo table projects ka dhammaan tables ka way inoo diyaarsan yihiin next marka maxaa rabnaa inaan database ku darno tables kan kadibna aan aragno relationka qaabka iyo waxyaabaha marka aan tirtirno xogtiisa isku raaci doonto iyo xogtiisa isku kala bedeli doonto cashirkan marka meesha ku sameynaa cashirka xiga inoo balna billahi tawfiiq